ma ogtahay faa'iidooyinka caafimaad ee liindhanaanta barnaamijkani waxaan idinku soo bandhigi doonaa faa'iidada liindhanaantu u leedahay qofka bini aadamka ah iyo sida ay uga qayb qaadato caafimaadka iyo difaaca jirka waxaanay ka hortagtaa ama bogsiisaa xanuuno badan oo qofka ku dhaca inaad isticmaasho waxay ku leedahay faa'iidooyin badan kharash badanna kaama gelayo waxa muhiim ah inaad laasinto faa'iidooyinka ay ku leedahay liindhanaantu haddaba waxaan ku soo qaadan doonaa dhowr qodob oo ugu talagalay barnaamijkan inaad kaga faa'iidaysataan qodobka koowaad kor u qaadida difaaca jirka biyaha liinta aad ayay u heer sareysaa waxaana ka buuxa vitamin C-ga faa'iidada vitamin C-ga waxa ka mid ah waxa uu kiciyaa ama soo saaraa dhiigga cad kaasi oo dhiigga cadi uu kor u qaado difaaca jirka waana shaqada uu qabto inuu cudurada ka difaaco jirka sidoo kale vitamin C-gu waxa uu burburiyaa oxidationka taasi oo micnaheedu yahay in oxygen-ta oo dhex gasho unugyada dheecaamadeeda uu kala saaro oxidationku waxa uu sababaa cudurro badan liindhanaanta biyaheeda ayaana ka hortaga cuduradaasi waxaanay soo saartaa difaaca dheeraadka ee jirkaagu uu leeyahay 2 dheelitirka heerka pH-ka liindhanaantu waxa ay ka mid tahay cuntooyinka la yidhaahdo alkalizing foods ee jirka asal ahaan waxa ay ka samaysan tahay acid laakiin jirkeena gudaheeda waxa ay noqotaa alkaline maado ahaan liinta waxa ku jira maadooyinka citric acid iyo ascorbic acid liindhanaanta acideedu marka ay jirka la falgasho waxa ay dhiiga u ogolaataa inay ka saarto alkaliga kaasi oo cudurada keena cuduradu waxa ay jirka ku yimaadaan marka dhiiga ama pH-ka ay ku badato acidku haddaba cabida biyaha liindhanaantu waxa ay yareysaa la dagaalamaysaa maadooyinka acida ee jirka kuwaasi oo ka kooban uric acid ee iskuusyada lafaha ku dhaca taasi oo keenta lafa xanuun qodobka 3 liindhanaantu waxay quweysaa maskaxda iyo unugyada halbowlaha ah maadada potassium-ka oo ku jirta liindhanaantu waxa ay nafaqaysaa unugyada maskaxda iyo kuwa halbowlaha ee ka faa'iideyso qodobka 4 ka hortagga cudurka kansarka sida laga soo saaray tijaabooyin caafimaad oo la sameeyay liindhanaantu waxa ku jira maadada citrus limonades oo ah maado ka ilaalisa xubnaha dhaawacma teetanada iyo igfashano badan oo isku bedeli kara kansar qodobka 5 igfashanka ku dhaca saableyda ama xubnaha neefsashada biyaha liindhanaanta cabidoodu waxay ka caawinaysaa inaad la dagaalanto cuna xanuunka iyo caabuqa sidoo kalena waxa ay ka qayb qaadataa daweysaana sanbabada 6 waxa ay dedejisaa dheefshiidka biyaha liindhanaantu ma qabtaan oo kaliya inay dedejiyaan dheefshiidka caafimaad qaba balse waxa ay la dagaalamaan bakteeriyada sababta calool fadhiga iyo in ay cuntadu ka bixi weydo waxa kaloo yareysaa daacada waxaanay daaweysaa nabar calooleedka iyo yalaalugadaba qodobka 7 dheelitirka heerka sonkorta dhiigga ku jira liindhanaanta waxa ku jira maado la yidhaahdo biofalvone taasi oo ah midda ka dhigta liindhanaanta midabka huruuda ah biofalvone-ku waxa uu kor u qaadaa soona saaraa insulinta sonkorta shiida waxaana qofka macaanka qaba ka caawinaysaa hoos u dhigga heerka sonkorta dhiigga ku jira haddaba sidaad u isticmaalayso waa sidan salaad subax markaa soo kacdid dadka caado waxaa u ah shaah iyo qaxwe cabaan laakiin midaan daaweynta ah waa ka duwan tahay qofka aroortii markuu soo kaco asagoo waxba cunin hadduu tarmuus haystana habeenkii uu biyahan qandaca ku shubahayaa hadduu shaahi markaa u karkarana caleenta iyo sokorta iyadoo lagu dambe keli waa aragtaan waa halkaasuu yaallaa jeexaasaa lagu shubayaa waa jeex ma aha hal xabo jeex wuu ka kabanayaa qofka wuu dhammaystanayaa then koobkii labaad ayuu ku shubahayaa wuu ka kabanahayaa koobka saddexaad saasuu asna ugu shubahayaa 3 koob iyo 3 jeex markaa qabtid 1 saac kadib baa wax cuni kartaa lagu ogolyahay quraacdaadi wixii ilaahay kuwa calfay adaa yaqaan 1 saac markaa sugta kadib inta halka saac waqtiga aad sugaysay
waxaa la kulmaysaa calaamado kala duwan. maxaa ka mid ah calaamadaha marka? calaamadaha waxaa ka mid ah markii aad halka saac ku jirtay waxaad arkaysaa sweat dhidid badan ayaa arkaysaa, yaa markii waa arkaysaa, aad dareemaysaa daaco badan baad arkaysaa, kaadi badan baad arkaysaa, neef badan ayaad arkaysaa ama dhuuso badan baad arkaysaa, saxaro badan baad arkaysaa. waxaad kaloo arkaysaa obataydka ama cuntadii oo kuu furantay markiiba. waxaad arkaysaa fudayd badan oo kuu yimid. waxaad arkaysaa wajac waxa la yidhaahdo confuse body, marba meel lagaa qabto, meel daanka lagaa qabto, madaxa lagaa qabto, qandho yaryar oo aslada waxaan warba cudur cusub oo kuu keenay laakiin aan ahayn cudurkii uu yahay shaqadii liinta ay qabanayso. intaas markaad aragtid shaqadii way bilaabatay. cuduradii jirkaaga ku jiro dhan waxay kaaga soo baxayaan ama neef ama aaryo ama dhidid ama saxaro ama kaadi. intaasoo dhan midba qayb bay ku baxaysaa. 10 beri u horeyso uu madax xanuun kaaga baxayo ilaa cudurka kow marka horeba madaxuu ka yimid. madax xanuun 10 beri buu kaaga baxayaa. baalka la yidhaahdo dhiigkarka 25 beri buu kaaga baxayaa. gaaska 10 beri buu kaaga baxayaa. waxyaabahan kale oo cagabalbalka ah, lafagaraaca ah, alerjiga ah waxay kaaga baxayaan 15 beri. waxyaabahan aniga hadda aan sheegahayo oo cudurada ay waqtiga waxayaan waxaan anigu ku soo sameeyay daraasaad. liintani faa'iidadeeda waxaa ka mid ah hadduu dib qalooc ku qanino, hadduu bahal ku qanino, hadduu aad kufto oo murgacato, hadday xabad kugu dhacdo, intaba liinta haddaa isticmaalto stop dhiig waa istaagayaa. intana waa tijaabinay, waa aragnay. liinta waxaa loo isticmaali karaa oo cajiibka ah ilmaha markay xanuunsadaan oo limonia ama kolba ariyo ama hergeb ay ku dhacaan, markiiba liintaa la mariyaa oo lagu huuriyaa, wuu ka boodayaa insha allahu. faa'iidada waa wax la yaab leh oo cajiib ah oo liintan laga helayo, laakiin dadka ma oga. waxaad ka daawanaysaa youtube-ka shirkadda like saar, subscribe na sii. waxaana kuu soo diyaariyey anigoo ah maxamed fuusi maxamed.